laga joogo 100 sano farduhu waxay ahaayeen qaar lafdhabar u ah nolosha bulshada Soomaaliland nolosheena oo ku tiirsanayd nolosha miyiga ayaa farduhu waxay u ahaayeen gaadiid kaasoo ay u adeegsan jireen ciidamada dagaal tagaya inay isticmaalaan fardo marka la sahaminayo waxa la adeegsan jiray fardo sidoo kale sahayda ayaa lagu doonan jiray oo lagu soo qaadan jiray adigu waxay ahaayeen gaadiidka ugu wanaagsan uguna badan ee laga isticmaalo guud ahaan adduunka gaar ahaanna Soomaaliland nolosha oo boqolkiiba 90 ama 80 ahayd dad reer miyi ah ayaa farasku waxa uu ahaa gaadiidka kaliyaata ee la isticmaalo haddaba maanta oo aynu marayno 2022 farduhu sidee ayay ku yihiin Soomaaliland adduunka iyo qaaradda aynu ku nool nahayba gaadiidkii farduhu u wacnaayeen ee xoolaha nool ahaa ee rakuubka dameeraha baqlaha ee farduhuna ugu mudnaayeen waxa bedelay diyaarado xiimaya oo isaga goosha qaaradaha adduunka kuwaasoo qaada kumanaan qof waxa kale oo la isticmaalay ama la soo saaray maraakiib iyaguna badaha waaweyn iskaga kala gooshta waa hagaag haddii aynu intaa kaga soo gudubno hordhicii iyo dhoolatuskii uu Khaalid banaanka inoogu sameeyey bal iminkana aynu xogta Khaalid idila wadaagno annagoo ku bilaabayna su'aashan Khaalid Ismaan Xaashi waa kuma Khaalid waa Somalilander ku dhashay degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal kuna barbaaray caasimadda Hargeysa kuwaaga Khaalidow taariikhdu markay imisadii ahayd ayaa dhalatay waxa dhashay 2002 bishii labaad 12 kolba haddii aad ku hana qaaday magaalada caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa waxaan filayaa inaad geedigaagii waxbarashada caasimadda ka bilowday dugsigeebu ahaa dugsigii alif lagaaga bilaabo waxa dugsiga intii ugu hooseysay ilaa 5 waxaan ka soo bilowday degmada Dila ka soo bilaabatay ayaan ka soo bilowday صح يعني أنا مركا حاجة واحدة قبل 6 قبل إلا 4 سكول كاد أولى قبل ذي مقعي اسمها بحرم شلي سويناك ولا وش سبواناك وكنت ترسني دقمة الدلال وكنت ترسني صح وسكول قاصد سبواناك كانت ترسن دقمة الدلال كي هذا سو بدلتي سمعي بحرم شلي أنا حركيسة كيرجيسة كيرجيسة السيني ودانت نفكي السيني علي جامع بريمري علي جامع سكول قاصد علي جامع صارت لي سكول دولة وهجاج isaga ayaana shahaadadaadii dugsiga dhexe ee sideedaadka aad ka qaadat sax secondary isaga keebad talow dhigatay waxaan dhigtay iskuulka Qowlaadan Dol Qowlaadan Dol ayaa dhigatay oo isna ku yaala degmada Axmed Gurey waa hagaag Khaalidow sida ka muuqataba xogtaad nala wadaagtay waxaad ku dhalatay magaalada Dila haddana waxaad ku hana qaaday oo ku kortay Hargeysa farduhu waxaynu isticmaali jirnay 100 sano iyo ka badan ka hor dhalinyarada aynigaaga ah ama filkaaga ah ama facaagaba ah ma yaqaanaan fardaha haday magac garanayaan oo faras u garanayaan hatta waxa laga yaabaa lab iyo dhadig inaanay u kala sixin oo ama faraska ninkiisa ama naagta faraska ay idhaahdaan dhalinyarada beer magaalkii siday ku dhacdayna farda ful noqotay والله هو كل يدك سكول منها قفا وحبو حيسيا واشتراعد وحا باقرونك وحا كدغو حيسيا صح ويرانتيسي قفا وحبو لا سو بربارا وارن marka anigu yaraanteed waan la soo barbaaray waan jeclaa markan faras leela ana faras aan arkayn laakiin inta fardaan meesha joog jiray laakiin awogii markii laga sheekeynayo awogii hooyo ayaa fardo filaan jiray ma sha Allah kadib marka laga sheekeynayo faras iyo waxa waan jeclaa waxaan jirto faraseed aanay sida faras arki doonta ma laga yaabaa inaad DNA-gaaga ay ku jirtay farda fuulnimadiyo aad awowga ka raacday adigu kulli wada ka laakiin xisaabiguna ku jiray kulliba xogta lagu wadaagay markaad ogaateen oo uga farda fuul yahay iyo xogta fardaha ka heshay ilaa yaraantaadii baad fardaha jeclay waan jeclaa waa hagaag goorma kuugu horeysay faras inaad aragtay faras inaan arko wax horeysay oo doono weyn adigoo weyn ana meel laakiin taawada markaan aan hor istaago ana weyn bay gudiyaan igu horeysay ayaa kuugu horeysay markii dambe laakiin waxa suurta gashay ilaa anigu aan soo iibsado anigu yeeshaba inaad adigu yeelatid oo soo iibsatid fardo waa hagaag dhalinyarada filkaaga ah
marka ay gaashaan qaadaan waxay inta badan tamaniyaan inay gaari iibsadaan adiga waxaad iibsatay fardo halkeed ka soo iibsatay وارفم ودتك وهاني مركي أنا لي فرستون سيبسدي والله عقد عليك بلا قصص سي دتك ولا يعبد ما ضح كلو كيبسدي ما يعني قالوا كيب ما ضح كلو كيبسدي ولا يقولي لكن بهدف كيس أيود روماني روماني أنا كيجا روماني مركا ما المقال دتك يود يهذا لا دتك ما المقال صح هذه بتكون صعب هذه ما كسعودي دوا سؤالي فردها مسيلة هرقيسك سيبسدي ما يكمل سيبسدي هاي مسيلة سيدي يعني كل فردوه ما ها سيلة قارة لو يبينه صح ها وفردي وكير يعني متشوقان دلكين تلتل بيكسين وكيري وارم marka yani waxa ka soo iibsaday xagga iyo yani jijigaagtida la faciisa ma leeyahay la faciisa ka soo iibsaday ayaan ka soo iibsaday ilaa iyo la faciisa ayaad dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaad u doonatay inaad farda ka soo iibsato ayaan u doontay oo aad inta tagtay aad ka soo iibsatay ha inta tagay aan u baxay صح ayaan soo helay markaas soo iibsaday markaas aan soo kaxaystay sida aan malaynayo fardahan hadda inala jooga ee waliba sida degan inoo ag taagan waa kuwa soo iibsatay waan filaya waa kuwa soo iibsaday وهجاي الواحد نوجو ورنتها دليل رفر بدن باكو تمادا أو فردها فوشة أو فردها كسورتها أو أرك أو ده وحويان أولي ماذا بل حق نجسي فردها يصيدا أو أنفعين دليل ذي في الكاجها يعني كل يدتكو إريجا فرس بمغلي ترين لكن مجوحان حرمي إن فرس كي أركان أي فلان أون تبرو أون سيو يعني يدتكو اسكو صوران ويحكي دوبتان مركان يعني يدتكو ارتأدو شعلي تكوير dalku inuu fardi ka sidamaanay ku yiriin laakiin dalku way jecel yihiin yani way yimaadaan way isku sawiraan yani marka yani way yimaadaan heerka sidaan xogta ku hayo gobolka Sool ayaa Somaliland fardaha laga helaa waliba sida la ii sheegay intay dadku haystaan waxa ka badan in kale oo duurjoog ah oo aanay la rabaynin oo deegaan ahaan markaan ka hadlayo laakiin xaggan Soomaalida Itoobiya كل ما هو استعمالان سيدا نمكن إنه فرتاو استعمالهم استعمالان وبارجاري أنت كل ركبان أي سيدا دميرها أي ورتان أو لغة استعمالها إذا هاد إثيوبيا أوردر لكن إنك ما أنت هي اللغة على فرس وحنركي هذه بو كوبي ستقول دي قرن كجمهورية الصومالي لا سيدي تمكن مي سنة كان لبضي يكون يلا بيلا بعتنك هذه بو سوي وما غيب قلي وكتب بهالدقيقة بل nooga waran dareenkaaga marka waxa weeyaan faraskii aad waxa weeyaan ilaa la faciisa aad ka keentay oo qayb ka noqdo munaasabadii ugu mudnayd ee qaranka oo waliba uu aad u bilo indhaha umadana aad u soo jiito bal maxay kula tahay adigu waxa weeyaan go'aankii maalinta inaad lacagta inta la gelisid fardaha kula tahay inuu ahaa go'aan sax ah oo aad naftaada iyo dalkaagaba aad wax ku tartay aniga dirxaan horta way la tahay sababta hadaf aan u lahaa iyo saan rajayni wixii say igu suurta gashay hadafkan doonay igu suurta galay ay farxad weyn igu ahaa inaan caasimad dalkaygiina aan ku maro maalintii dhimigii aanay qaaliheedna aan ku maro oo farxadii dadkayga faraskayga kula qaybsado maantaas ma aan farxad weyn aad u baydo aan faa'iidadii faraskayga aan soo iibsaday hawshiina aan ku iloobay noqotay ma sha Allah Khalido anigu dadkan kamid ahay waxaan aad u jecelahay fardaha waliba inaan farda fuul noqdo imikana waad arkaysayo markaa korkiisa saarnaa aniga laftigayga ayaa dheeliyayo kolba dhinac dhacayay xabsidaan ka qabo faraska iyo guudkiisa intaan saarnaa ma kula tahay inaad fursad noo siin kartid inaad dugsi noo furtid aanu dadkayaga aniga iyo inta xiisaysaba aanu ku baran karno farda fuulista كل وصح درحانو يعني أديكون معها أنتوا قف إيه مجاي لصح هذا الشيء إيه ماشي مهرد يقول تسمع ده يقول تروح دوني إن البرتيدة تريل بدنا نسيسيد وميلها كده منو باجرون أنا بقسم يسيب بليجرون أو اسم يسوي فرضها ميلو جارة مركا إيه مجا وقت أنا كده دوني إن شاء الله هذا في قلبان دوني نرفم يو ميل فرضها وجارة ونفرضها إنه كنت ياريو تبرست ضد كان تريل كوسينيو وضد فرض فلو أكتر أنا لما يسترن أنا صار صار حين كسر صار ما شاء الله maanta waa hawl aad u muhiim ah dadkuna aad ugu baahan yihiin Allah kula garab gal ayaan leeyahay mar dhaweyd galabtii markii aynu banaanka joognay waxaad ii sheegtay heensaha faraskaaga saaran inuu kii awoogaa yahay kooriya awoogi weeyii marka aan awoogii waan ka soo qaatay kadibna saas aniguna aan ugu sii isticmaalay imigoon ku fuulaa aan dadkana ku saaran awoo weli waa noolyahay mar kale waxaad ii sheegtay inaad faraskaaga gaadiid ahaan sidii uu ahaaba
aad u isticmaashid masaafada aad rabtidna aad ku tagtid halkee ugu fogeeda ku tagtay waa ku tagaa kulley halkay ku sheegay markaan soo kaxaysanayaan soo kaxeeybo masaafo iyaduba ilaa wax ku tagay Boorama oo ku tagay oo waan ku tagay xaggana dee meelaha u badan ee hawdka iyo meelahan hawl iga gasho anigu gaari ma karsan gaarina ma kaxaystay kayguna baan ayar xasaskaaga bulaale ayuun baa xakamaha ku xidhay ayuun bad xakamaha ku xidhataayo halka ku soo fushaashay ay danaagii hawlaha ku soo dhameystay waa hagaag kulliba farduhu magacyay leeyihiin sidaan ka garan karno faraskayga bulaale waa fardaha magacyadooda mid ka mid ah labadan faras ee hadeerina ag jooga magacyadooda kana waa ashkir weey ashkir kana waa xamar jilba madow weey kana waa xamar jilba madow ashkir iyo xamar jilba madow haddii aad inuu meel qoraala ka akhrideen bal iminkaba iyagoo idin hor taagan oo nool dhugta oo bal ka bogta waa hagaag hadeer labaad haysataa lama haysta hadda ma laga yaabaa dee inaad intan kasii badisid fardaha waa saan kugu sheegay hadafkayga labaad weeyaan waxa doonaan kasii badiyo markaa imika xarunta diyaariyo inaan iyagoo fara badan aan keeno oo kala duwan weliba imika laba midab baad aragteen midabadii kale oo iyagana inaan insha allah iyagana aan kusoo daro midabadii kale oo dhan aan kusoo daro aad wada keentid waa hagaag maanta waxaan idiin soo gudbinaynay xogta ku saabsan fardafuulnimada wiil dhalinyaro ah oo reer magaal ah oo qayrkii inta badan aanay fardaha magac moojaane muuqaal aanay ku arag inta aragtayna ay hadeer tahay inta iminka sanadadan dhaweyd ka bowsatay aragtida amaba sawir jaanis uga heshay inay ku gasho muuqaalkan waxaan idinku soo gudbinay si aad ula socotaan hibooyinka iyo hal abuurka iyo habfikirka dhalinyarada ee weliba kuwa tanaaday waxa weeyaan fikirkiisu intuu yaraa wuxuu ahaa inuu fardafuul noqdo wuu noqday haddase waxa uu doonayaa inuu xarun weyn oo Hargeysa iyo Somaliland anfacda uu inoo furo Khalid aad baad u mahadsan tahay waqtiga aad na siisay iyo fardahaaga quruxda badan ba Allah ku barakeeyo ayo walaal aad ku salaamay